maanta waxaanu halkan u nimi aasasi laweye ascaanadu waa halbowle baacabe waa halbowle daleeco lama huraana ayadbu laweye shacabka dooxay waanu diidnay dalka xoogay waanu diidnay dadka laayay waanu diidnay dagaal ooga dooni mayno nabadda diiday dooni mayno ooga waanu diidnay dad la laayay waanu diidnay nabadda diiday waanu daynay waanu diidnay nabadda diido waanu diidnay nabadda diido waanu diiday dab la qaybsho waanu diidnay dal la qaybsho waanu diidnay dal la laayo waanu diidnay dal la qaybsho waanu diidnay dal la laayo waanu diidnay dumar la xoogo waanu diidnay dal la laayo waanu diidnay dumar la xoogo waanu diidnay nabadda diido waanu diidnay dal la qaybsho waanu diidno dooni mayno dulmi diido dooni mayno dulmi dooni mayno sayka qaata dooni mayno dadka laaya dooni mayno shicibka dooxay dooni mayno waynu diidno dooni mayno waynu diidnay shicib la dooxo waynu diidnay nabad la daadsho waynu diidnay dad la laayo waynu diidnay dad la xoogo waynu diidnay gabadh la dooxo waynu diidnay waynu diidno dooni mayno waynu diidno dooni mayno dad la qaybsho dooni mayno nabad la diido dooni mayno dad la laayo dooni mayno shicib la diixo dooni mayno shicib la dooxo waynu diidno dooni mayno shicib la dooxo dooni mayno dad la laayo dooni mayno dad la qaybsho waynu diidno dooni mayno dad la laayo dooni mayno gabadh la dooxo dooni mayno nabad la diido dalka qaybsho waynu diidnay dulmi doone waynu diidnay nabadda diida waynu diidnay raashinkii WFP-da ee wax ka bixisa dawladda Ingiriisku ayaa militariga lagu masruufay dadkii abaaruhu hayeenna laga weeciyay waxaynu halka u nimi inaynu u caddayno dawladda Ingiriiska oo in badan oo innaga inaga midi ama boqolkiiba 90 ay yihiin dad British nationalist ah oo cashuurtii laga qaaday lagu xasuuqayo dad Soomaaliyeed lacagta Ingiriiska ayaa loo isticmaalayaa qabiil baa intuu qaatay qabiil ku laynaya and tribe using against another tribe. The taxpayer money has been misused. waxaanu sheegaynaa dadka dawladda Ingiriiska Downing Street Prime Ministerka iyo publicaba in dad lagu xasuuqay lacagtii Ingiriisku bixinayay waxaanu caddaynaynaa lacagta inay ka qadeen dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn aan waxba laga gaarsiin waanu diidanahay ee hadhaco deegaanadayada ha ka baxo hadduu ka bixi waayo qorigaanu ugu sheegaynaa waxaanu ugu sheegaynaa xabad baanu kaga saaraynaa kama laamayno ilaa ninka ugu dambeeyo ee ku cabtirsanaya SSC uu nool yahay ma isma agsoogi karayno waxaan leenahay taliska foosha xulli ha dhaco siiraaya ha dhaco ummadda Soomaaliyeed ha noolaato madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ha noolaado Soomaali baanu aan ku nahay mani in gobolaysi waxaanu ka soo horjeednaa kala qaybka Soomaaliya anigu ayeeya oo hooya ayaa la tacaanood laygu jirdilay oo laygu xidhay oo saddex jeelka ku jiray walaalayaal waxaan idin leeyahay buuhoodle Silaanyo iyo Soomaali jeedku ma helayaan buuhoodle raggi geesiintaha ee u dhashay baa iska hortaaga oo naftoodii u huray waxaanu leenahay la tacaanoodna degdeg bay kaga baxayaan iyagoo ordaya iyagoo kabna lulaya kabna laadlaadinaya insha
dhashay waxaynan arag oo aynan maqal oo muslim ku dhaqmin oo bini'aadmin ku dhaqmin ayaa lagula dhaqmaa sool iyo sanaag iyo cayn waxaan idin leeyahay kharashka ururiya saynu maatadeenna uskoolada biyaha maxayta caafimaadka iyo wax allaale wixii aynu u baahannahay aynu ku qabsanno lacagta bixiya raggeena waynu raacsannahay maxayta ACC ha noolaato cadla toosiya ha noolaado cali sameerey ha noolaado ha noolaado ha noolaado ragga magaceena kor u soo qaaday ragga magaceena kor u soo qaaday maxayta maanta sharafteena muujiyey adduunka ee soomaaliya geeska afrikaba maanta sharafteena ku muujiyey ragga weynaynu isbarbarteegno Somali ma ogoli kara harkeeda Somali baanu dhibanaynaa Somali baanu nahay xawar baanu nahay waxaanu nahay garaawe waxaanu nahay ilaa raas xaseer ilaa raas kamboni kala goy mayno Somali baanu doonaynaa kala tegayna weligaya Somali baanu jecelahay Soomaalinimadaanu horay ugu dhimanay haddana ku dhimanaynaa intaan gaara leh oo Somali ka maarmay anagu kamaanu maarmin waa walaalahayo waanu jecelahay Somali baanu nahay caasimadayadu waa Muqdisho annaga hargeysana lagama xukumo hargeysa waa Muqdishoanu ka nimid oo jecelahay we love you all Somali annagu baadi Somali qayb ka mida ma jeclin iyagana waxba kama rabno madaxweynaha iyagu waa Sheekh Shariif ha noolaado Somali baanu nahay Somali baanu jecelahay ACC waa Soomaaliya weligaya annagu midnimada Somali baanu u taaganahay iyaga waxba kama rabno maanaan doonan waxayna ku qasbayeen inaanu Somali ka goono geersannahay oo meeshaan u nimid waxaanu maanta halkan isugu nimid horta inaan dhowr arrimood marka ugu horraysa waxaa weeye dad Soomaali ah oo xor ah laguma khasbi karo inay dalkooda ka go'aan oo midnimada ka tagaan annagu waxaan taageeraynaa annagoo dawladda Soomaaliya dalka Soomaali u hadlayna in ummadda Soomaaliyeed ay mid tahay oo aan la kala goyn karin qofkii wax kala goynayana annagu ma raalli kama nihin midda kale dad Soomaali ah in lagu soo duulo oo dagaankoodii lagu soo duulo oo la laayo waa la dhibtay mana ogolin waxaa jira inta dalkii Soomaali waa burburay dawladdii Soomaali waa burburtay marka inta la isaga imaanayo dagaan nin walba dagaankiisa inuu joogo oo dagaankiisa asagoo ku sugan ummadda Soomaali la isu keeno weey dalka Soomaaliyeed in la kala gooyo ayaanu ka soo horjeednaa waxaanu kaloo ka soo horjeednaa dhaqaalaha Ingiriisku bixiyo in loo isticmaalo in dadka lagu laayo taana waanu ka soo horjeednaa dalka Soomaaliyeed in la kala gooyana waanu ka soo horjeednaa waxaanu aaminsannahay halka wax lagu xalili karaa inay nabad tahay aanay xabad ahayn dhaqaalaha Ingiriisku bixiyo ee uu bixiyo waxbarasho ee uu bixiyo caafimaad ee uu bixiyo socialka in loo isticmaalo dagaalna waanu ka soo horjeednaa arinta ugu muhiimsan halka isugu nimid waa arinta soo dhan u soo halgamaynay waxa dhashay 60kii calan Soomaaliyeed kama aanan qadin oo kama aanan hadlin oo raggayagu iskama ay nabine isagoo duuduuban raggii geeyay xamar Muqdisho waa annaga ayagu waa diideen kuwa annaga maanta caruuraha iyaga iyo dadka iyaga iyo maatadayada dilaya marka walaalayaal waxaanu maanta intaas anagu mudaharada ma samayno dawladda uma orodno dalal ma tagno waaya dawasigaanaan aqoonin jeel caanihii baana lagu soo kariyey waxaana lagu soo kariyey hashayada iyo hawd ayaana lagu soo kariyey sool iyo sanaag baanu ku soo kornay maya ha israacdo isku toosto cadowga ilaahay ka saaro shacabkeeda allaha jabiyo shacabkeeda allaha jabiyo midnimada iyo sharaftii allaha soo celiyo midnimada iyo sharaftii allaha soo celiyo inta wiiqaysa ilaah waahidkaa naga qabto cadowgaan jaban sool iyo sanaag ha israacdo sool iyo sanaag iyo cayn ha israacdo dadkeedu ha midoobeen cadowgooda meel ha ka wada arkeen midaan ha raacdo ha wada midoobeen caafimaadka loogu talagalay
in hub la siisto oo shacab masaakiina lagu laayo oo lagu khasbo waxaanay doonayn socon mayso dowladda ingiriisku taa ha u fiirsato taariikhaa dib ha ugu noqoto waxaannu leenahay waxaa guulaysanaya reer SSC waxaa guulaysanaya reer SSC waxaa hoogga la kulmaya kuwa ku soo duulay waa laga adkaan doonaa sharcigana waa la horgeyn doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida loo dhinto waa naqaanaa sida loo dagaalamana waa naqaanaa waxaan ka rabnaa inaad maxaahaytay adkaysa yeelataan in ujeeddadii aynu nimado ahayn inaynu ka qaylino halkan xafiiska ra-iisul wasaaraha hortiisa aynu muujinno in lacagtii laga qaaday tagisbeeyiriska maxaahaytay dadka ingiriiska ah lama jara hadaabiyey la in dhiig lagu isticmaalo loo bedelay taasaynu muujinay No more divisions! No more divisions! We are one nation! We are one nation! We are one people! We are one people! No more! Waynu diidno dooni mayno! Dooni mayno! Waynu diidno dooni mayno! Dooni mayno! Dallan qaybsho dooni mayno! Dooni mayno! Nabad la diido dooni mayno! Dooni mayno! Dad la laayo dooni mayno! Dooni mayno! Shicibka dooni mayno! Shicibka sooxay dooni mayno! Dooni mayno! Dadka laayay dooni mayno! Dooni mayno! Waanu diidnay! Waanu diidnay!